Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal qaybtii saddexaad ee webiga Niil. Niilka cas ee ka hooseeya isku xirka Niilka buluugga ah ayaa kaliya ugu weyn webiga Atbara oo sidoo kale loo yaqaan Niilka cas. qiyaastii kala bar xagga badda kaas oo ka soo jeeda Itoobiya ee dhanka waqooyi harada Tana waxaana dhererkiisu dhan yahay 800 kiiloomitir. Atbara waxa uu qulqulaa oo kaliya marka uu roob ka da'o Itoobiya oo si xawli ah u fataho. inta lagu jiro xilliga qalalan ee Janaayo ilaa bisha Juun waxay caadi ahaan ka soo qalalaan waqooyiga Khartoum. Niilka buluugga ah muuqaalka ugu muhiimsan. Niilka buluugga ah biyo dhacyada Niilka buluugga ah ee quudiya harada Tana oo u dhow magaalada Bahar Dar. dhanka Itoobiya muuqaal qeexan oo ku saabsan Niilka iyo Badda Cas oo leh duufaan boro ah. Niilka buluugga ah waxa uu ka soo burqanayaa harada Tana ee ku taalla buuraleyda Itoobiya. Niilka buluugga ah ayaa ku qulqula masaafo dhan 1400 kiiloomitir magaalada Khartoum, halkaas oo ay ku kulmaan webiga Niilka buluugga ah iyo Niilka cas si ay u sameeyaan webiga Niil. boqolkiiba 90 ka mid ah biyaha iyo boqolkiiba 96 ka mid ah wasakhda la raba ee uu qaado webiga Niil waxay ka timaadaa Itoobiya, iyadoo boqolkiiba 59 biyuhu ka imaanayaan Niilka buluugga ah, halka inta soo hartana ay ka yimaadaan webiyaasha kala ah Takesa, Atbara, Soba iyo kuwa kale. nabaad guurka iyo qaadista carrada waxay ka yimaadaan oo kaliya xilliga roobka Itoobiya oo roobka aad uga da'ayaan dhulka Itoobiya. sanadka intiisa kale webiyada waaweyn ee ku qulqula Itoobiya ee webiga Niilka way sii yaraanayaan. xilliyada qalafsan ee qalalan iyo abaarta webiga Niilka buluugga ayaa si buuxda u engega. qulqulka Niilka buluugga ah aad ayuu u kala duwan yahay wareegiisa sanadlaha ah, waana mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kala duwanaanshaha dabiiciga ah qulqulka Niilka. inta lagu jiro xilliga qalalan qoyaanka dabiiciga ah ee Niilka buluugga ah wuxuu noqon karaa mid hooseeya ilaa 113 mitir cubic per second-kiiba, inkasta oo biyo xireennada kore ay nidaamiyaan socodka webiga. inta lagu jiro xilliga qoyan qulqulka ugu sarreeya ee Niilka buluugga ah waxa uu dhaafaa 5663 mitir cubic oo biyo ah. dhammaadka Agoosto ka hor intaan la dhigin biyo xireennada webiga dushiisa qulqulka sanadlaha ah waa mid kala duwan. socodka ugu sarreeya ee ka badan 8212 mitir cubic per second-kiiba ayaa dhacaya dabayaaqada Agoosto iyo horaanta bisha Sebtembar, halka socodka ugu yar ee qiyaastii 552 mitir cubic uu dhaco dabayaaqada Abriil iyo horaanta bisha Maarso. Bahr al-Ghazal iyo webiga Soba waa labada webi ee ugu muhiimsan webiga Niilka cad marka loo eego qulqulka biyaha. biyo shubka Bahr al-Ghazal waa kan ugu weyn mid kasta oo ka mid ah webiyada Niil oo cabirkiisu dhan yahay 520,000 kiiloomitir laba jibaaran.
laakiin waxa uu ku daraa Niilka xaddi yar oo biyo ah, qiyaastii kuwaas oo gaaraya 2 mitir cube per second sanadka oo dhan. Sababtoo ah xaddi badan oo biyo ah ayaa ku luma dhulka qoyan ee gobolka Sud. Webiga Soba, kaas oo ku soo biira webiga Niil oo masaafo gaaban ka hooseeya harada Noi, waxa uu maraa kala bar dhul ah, waxa uuna soo daayaa 225,000 kilomitir biyo ah. Laakiin waxa uu webiga Niil ku daraa 412 mitir cube oo biyo ah ilbiriqsi kasta. Niilka marka daadadku soo rogmadaan, webiga Soba wuxuu qaadaa xaddi aad u fara badan oo wasakh ah, taas oo si weyn u beddelaysa midabka webiga cad. Sidoo kale waxaa jira Niilka jaalaha ah, qariirada webiga Niilka ee Suudaanta casriga ah oo muujinaysa Niilka jaalaha ah. Niilka jaalaha waa qayb hore oo isku xirta buuraha Oday ee bariga waddanka Chad iyo dooxada webiga Niil. Haraadiga webigan waxaa loo yaqaanaa Waadiga Howar. Webigan wuxuu sii maraa Gardafuur oo u dhow xuduudka waqooyi ee waddanka Chad, waxaana la kulmaa webiga Niil oo u dhow cirifka koonfureed. Biyaha webiga Niilka qaaradda Afrika.